si guud waxaan u codsanaynaa qof kasta oo muslima oo muuqaalkan soo gaaro meeshuu raba ha ka soo gaaro siduu raba ha u soo gaaro inuu la wadaago dadka walaalihiisa oo muslimiinta si asagana ajar ugu noqoto dadka kaleetana jaaniska intay arkaan ay uga faa'iidaystaan oo aad sheer bas dhahdid sheertaas waxa laga yaabaa 100,000 oo qof haddii aad gaarsiisid sheertaadu ay gaarsiiso ama 5,000 ay gaarto qof kasta oo ku soo darsada $1 ama ka badan ku soo darsadahay inaad noqotid adaalu cala alkhayri ka faacili daawadayaal sida arkaysaan waxaa saakay la shubayaa biyaanadii koowaad ee masjidul casiis oo laga rabo in laga dhigo dabaqeen guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkan oo ugu horeeya mudariska masjidka sheekh mursal shire maxamed iyo mashaayikh kale ayaa ka codsaday walaalaha muslimiinta ee muxsiniinta khayrka jecel in ay ka soo qayb qaataan dhamaystirka masjidkan si kasta ahaatee masjidka ayaa dhismihiisa ka socda xarunta gobolka mudug magaalada gaalkacyo gaar ahaan ka soo horjeedka shirkadda Amal Ban dhanka qurax ka soo bax. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan waxaan u soo gudbinaynaa walaalaha muslimiinta ee muxsiniinta ee samafalka iyo khayrka wax ku bixiya waxaan maanta dul saarannahay oo ku sugannahay masjidka Al-Aziz ee ku yaala magaalada Gaalkacyo bartankeeda masaajidkaas oo ah masaajidii qadiimka ahayd ee magaalada Gaalkacyood masaajidkaas oo dib habeen hadda lagu samaynayo horena laamiyeer u ahay oo aad u soo darooray oo biyaha soo deyn jiray la gartay in dabaqan laga dhigo oo la shubo masaajidkaas magaalada bartankeedu ku yaala meesha uu maanta marayo oo shubki ah waxa soo gaarsiiyay dad muxsiniin oo muslimiin oo samafalayaal ah dad si gaar ah masaajidka ugu xilqaba waa jiraan oo si fiican oo wanaagsan uga qayb qaatay marka dadkaasna khayr Allah siiyo haddana sidii baan uga rajaynaynaa walaalaha kale oo muslimiinta dhammaantoodna waxaan u soo gudbinaynaa masaajidka dhamaystirkiisa inay ka qayb qaataan oo nala dhamaystiraan insha Allah wax badan baa masaajidka u harsan oo aad iyo aad u fara badan marka intaasaan soo gudbinaynaa akoonka masaajidka amal akoon amala 230 104 46 98 29 akoon maxaan ku radaa salaama banki 8 akoon golis ah oo masaajidku leeyahay 41 number golis ah 76 number hurmuud ah eber 6 hal furasideed 13 بارك الله فيكم الله إني بركة مساج كده مستير كيس نقلا قيقاتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله ما هذا إسكاله نقص قيب قرية مساجد كان أنقصنا العزيز وهذا الغشة كان هي الله نقص قيب قرية هوش قصة طيلة صام هذا إسكاله وحن ضدكم السلام كأو باقة هنا مساجد ولا يقانا فضل يقيمها أولية هي gaar ahaan masaajidkan oo kale oo halkan kala ka dhisan oo wixii darsiga khayrka socon jiray la yaqaanay oo masaajid hore qadiim ahaa oo kii hadda la sheekeynayay oo bannaankooda magaalada bartankeeda ku yaala waxaan leenahay dadka muslimiinta muxsiniinta oo khayrka jecel masaajidka inta u harsan ha laga qayb galo ha dhamaystir meel fiican marahayaa fariilaha alxamd maanta wuxuu marayaa subkii baa shubayaa wax badan baa u harsan waxaan islaamka aan ugu baaqaynaa cod dheer ugu baaqaynaa masaajidka dhamaystirkiisa laga soo qayb galo yaraan iyo badnaana ma laha qofkii $1 kaga qayb galo wax weyn buu helayaa ka badis sidoo kale waxaan leeyahay barakallahu fiikum waxaynu joognaa masjidul aziz oo maanta shubkii oo ka socda sagxadda sare meel wanaagsan baa masaajidku soo gaaray ilaahay mahadiis waxaana ilaahay sabab uga dhigay dadka muxsiniinta ah tabarucaadka weyn ka geliyay masaajidka haddana masaajidku bartamihiiba uu marayaa shaqadiisa kala barbay maraysaa inaynu dhammaystirno insha Allahu tacaala si ugu soo banaado in lagu cibaadaysto jumcadii iyo jamaacaadkii iyo duruusii dhammaan cibaadaadkii loogu talagalay awalna ka socon jidhay ay u hirgasho ayaa walaalayaalayna ka rabaa inaan wax ka dhammaystirno dadkii hore ka qayb qaatay qof wax badan bixiyay iyo qof wax yar bixiyay Allah barakeeyo sadaqa yaraan ma leh
halka dollar qofka awooda iyo qofka kunka awooda iyo qofka 10 kun awooda qof kasta waa loo baahan yahay sida culimadu u horeysa sheegtay waad aragtaan qof walba indhihiisa u macalina maanta masaajidka meel fiican buu maraya gabagaba dhowdhow wax badanna waa u harsan yihiin wax badanna waa la soo qabtay intaas waxa soo gaarsiiyay dad muxsiniin oo ilaahay maalkooda u barakeeyay adduun iyo aakhiraba Allah u barakeeyo haatana waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meel kasta ay joogaan dal iyo dabadba inay ka qayb qaataan oo masaajidka wax badan buu u baahan yahay mutaleelkii iyo darbiyadii iyo wax badan baa u fara badan baa yaa dhiman meeshii weysada suuliyaashii hawshiisa ma dhowa marka baarakallahu meel kasta aad joogtay waxaan ka codsanaynaa qof kastoo mu'mina oo fiidiyowgan uu soo gaaro inuu sheer gareeyo oo mu'miniinta kale sii gaarsiiyo markaad qof mu'mina sii gaarsiiso oo sii sheer garaysid addaala cal khayr ka faacili weeyo kii ka soo bixiya waxbaad ku leedahay kun markuu bixiyo adigana kunkii oo kale kuu dhacahaya $1 hadduu bixiyo $1 kii oo kale ajirkiisa oo kale aad leedahay marka baarakallahu fiikum waxaan rabnaa insha allahu tacaala 100 kun oo qof oo min $1 bas ku soo darsato 100 kun oo qof oo min $1 masaajidka meel bay gaarsinaysaa qofka ay ka baxdayna ma dareemayo meesha ay ku soo dhacdayna wax badan bay ka bedelaysaa insha allahu tacaala intaas oo salaam alaykum